السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada dhammaan akhyaarta ku xidhan jira keen Soomaali Network Classroom. waxaan fideoga hore hadduu alla idmo kaga waranay farqiga u dhaxeeya tabalka iyo hadduu alla idmo iyo liiska. waxaan rajeynayaa arday walba maanta cashirkeena maraya inuu sharaxi karayo farqiga u dhaxeeya tabalka. bal waxaad ii sheegtaa laba farqi oo u dhaxeeya tabalka iyo laba farqi oo u dhaxeeya tabalka iyo liiska iyo laba shay ka midaysan yihiin. horta labada shay ka midaysan yihiin ay sheegay labada shay ka midaysan waxa weeye in wixii order loo galiyo wixii la soo galiyo tabalka value looga dhigo iyo wixii liiska value looga dhigo labadaba ay order yiri oo sidaad markii hore soo kala galisay markii aad gelinaysay wadhoona loo soo gelin doo loo soo daabici doono. qodob kale ay ka midaysan waa maxay? waa duplicate-ka way aqbalayaan. ereyga soo muhiim duplicate-ka waxa loo aqbalayaano oo wax shay waan soo laba celin kareena tabalka shay ku jira oo value-giisa kamid ah tusaale magaca Cabdicasiis oo kale 10 jeer 100 jeer waan ku soo celin kareen liiskana waa labada farqi oo dhaxeeyana waanu sheegnayo kan loo yaqaan liiska waxa lagu yaqaanaa waan sheegnay hadduu la idmo inuu adeegso kala yaqaan square bracketska halka uu tabelku adeegsado hadduu la idmo maxay saaxiibkayo round bracketska. qodobka labaad oo dhaxeeya aanu sheegnay waxa kan waa changeable oo wixii ku jira waxbaan ka bedeli karnaa values kana waa non changeable tabalka waxba ka bedeli karmayno. hadday sidaa tahay aanu soo faanay waxaan maanta u imanaynaa waxyaalaha parametriska la tacaamula markaan joogno tabelka markaan joogno mucaamalaadka iyo baaraamitirada aan ku dhex isticmaali karayno. waxa kamid ah baaraamitirada aan ku isticmaali karayno plus iyo calaamadii isku dhufashay inta waa saddexdii markaan ku soo aragnay halkee markaan joogno liiska saddexdii isla shaqadu may qabanayaan oo calaamada plus ka sheegay waxay qaban jirtay calaamada plus waxay noo qaban jirtay saaxiibka markaan liiska joognay laba liis oo aynu samaysanay ama saddex liis oo samaysanay ama afar liis oo samaysanay ay hal liis inoogu soo gudbin jirtay. maanta tan marka tabelka joogna waa la mid calaamada isku dhufashada waxay noo qaban jirtay markaan liiska joognay liis aynu sameynay oo shay gelinay baanu inta rabna jeer ku soo celin jiray marka liiska joognayna waa la mid in maxay noo qaban jirtay in waxay noo qaban jirtay inaan hubino value ku jira liiskeena inaan ogaano shaygan ma ku jira mise kuma jiro markaan tabelka joognayna waa la mid bal aan tijaabino ugu horeyn bal intaan eegno haddii mid ka faantid hada liiska faantid tabelkuna 100% fahmaysaa imka indhahana hadduu la idmo indhahana lesson 38 Soma .py okay haddaynu ka dhaano tusaale list ma sameysana listka waxa loo yaqaanaa magaca inoogu bixiya caris baba loo yaqaanaa waxa inoogu jira list yaana dhihinde list weyn ka soo gabiyo tabal calaamadaas tabalka loo yaqaana dadina waxaan ku gurnaa gawaadhi magacyada waxa inooho hadduu alla idmo gaari loo yaqaano raaxo okay gaariga nooca saddexaad oo leeyahay waa booyad saxmatay bal imaka hadeen rabna list kala sameysano list kala waxa loo yaqaanaa speeds baa loo yaqaanaa waxa inoogu guda jira hadduu la idmo speed 100 ah speed 200 ah speed 300 ah hadeen rabna labada list yana dhig labada tabal inaan isku xidhno waxaan adeegsanaa parameterka loo yaqaano plus beelaan adeegsano waxaan sameysanaa list kala loo yaqaano final ama result waxa dunto laba aday ku jirtaa deetana waxa leenahay variable kan loo yaqaano final shaqadiis wax kala maahay wuxuu isku geyn doonaa hadduu la idmo labada tabal ee loo yaqaan caris iyo haddoo la tabalka kale loo yaqaan speeds deetana midhow waxaan soo daabici rabnaa hadduu la idmo variable ka loo yaqaan final oo inoo haya labada tabal oo isku geeyay marka waxa leenahay final inoo soo daabac sheekadu waa dhan imka waxaan arki doonaa nooho ay raaxo iyo booyad 100 200 300 oo hal liis la iskaga dhigay hal liis yaan dhig hal tabal la iskaga dhigay mar walba hal liis haddaad maqashaan oo casharada ku jira liis hadalaya waxaan ka wadaa hadduu la idmo tabal baan ka wada adiga arka sheekada taala dhamaystiray calaamada plus marka waxay noo taraysaa laba liis wixii ka badan bay isku xuleysaa calaamada isku dhufasho waxa wixii liis noogu jiray way noo soo celinaysaa calaamada isku dhufasho tusaale halka waxay noo sameeysan hadduu la idmo tabal bay noo sameeysan nooho iyo raaxo bood loo yaqaan halkayna tusaale kale waxaan rabnaa nooho inaan 3 jeer soo celino raaxana 3 jeer booyadna 3 jeer inaan soo celino halkaynu markii aan ka qori lahayn saaxiibka ayaan dhihi lahayn nooho markii aan qori lahayn oo hadduu la idmo aan soo xuli lahayn okay dhaka shan ka baro oo markii la adana qori lahaa hadduu raaxana waxa rabay inaan 3 jeer soo celiyo aan iyadana soo celin lahaa oo hadduu la idmo booyadna soo celin lahaa hadana markii loo la maadaama noohadaan rabay inaan 3 jeer soo celin kala jeer bay igu qoran markii la inaan soo celin lahaa nooho okay nooho ka soco kii kale aan rabay inaan soo celiyo muxuu raaxo okay kii kale aan rabay inaan soo celiyana muxuu hadduu la idmo
way dhantay kii saxaan soo celiyo wuxuu ahaa booyad baan radagana rabay oo intaas oo dhan inka qofka barnaamijkeena arkay inuu u qoran yahay isla markii wuxuu arki doonaa in weligeena programming baran oo wuxuu qoranayaa magacan noo inta jeer soo celisay miyaad ka maarantid buu kuleeyay soo waxaan tabal maaha waa inaad ka maarantaa buu kuleeyay oo saan uga maarmaa haddaad tira wuxuu qoray waxaad uga maarmaysaa asalkaaga hore kusoo cesho qoranaya asalkaaga hore saamay ahayn wuxuu qoray waxaad adeegsataa barometerka loo yaqaano isku dhufashada deetana halkaa dhig buu qoranaya calaamadii isku dhufashada halkaa dhig imse jeer bay rabtay nahada inaad soo celisay raaxada ay booda 3 jeer halkaa tiri ku dhufan buu qoranaya madhowna waxaad soo daawacdaa list name table namekaaga loo yaqaanay caris shaqadu oo dhanta oo imika haddaan dhahno ran dhahno magaca naaho 3 jeer raaxo 3 jeer booyid oo 3 jeer aynu eegno adiyaarka aan ku soo dhaweeyo okay walo fiirso nooho kow mar kale mar saddexaad raaxana waa kow 2 3 booyadna kow 2 wuxuu ku tariyaa mitirkaada wuxuu ku tariyaa shay aad soo celinisay inaad hal mar aanaad ku celinin tusaale kale haddaad rabtiin magacaaga kale aad soo celisay isagoo ah tabal ah okay tabal ah oo magacaaga tusaale kale wuxuu yahay Cabdiasiis oo kale okay halka ugu dambayso maxaad ka dambaysaysan adoon calaamada isku bisay imse jeer baa rabtiin inaad soo celisid 100 jeer baa tiri 100 jeer baa lagu soo celin doonaa okay variable-kan la soo daabacayana ama table name-kan waxaad bixisaa daalimo name subax eegado hada 100 jeer oo Cabdiasiis oo inaan aragnaa wadi arkay 100 jeer oo imse jeer Cabdiasiis ilaa halka marka barometerkaana in la fahmiyo jira barometerka saddexaad halkan inoo yaalo waxa weeye in waxay noo sheegaysaa table baan sameysana tabalka inuu shaygaasi ku jira in kale inoo hubinaysa bilaan sameeyno tusaale waxaad noo sameysaa table loo yaqaano names loo yaqaano okay dadina magaciisa inoogu gur magaciisa inoogu jira waxa kamid ah hadoo leeyno magac loo yaqaano Cabdiasiis kii hore muu lamid yahay markii aan joognay liiska magac kale inoogu jira magac kale loo yaqaano maxay magac loo yaqaano Suldaan marka aad magaciisa si doontid gasho laakiin way inaga tusaale magaca saddexaad ee jabina magac loo yaqaano Xafsa okay saddexda tabalkeen saddexda value ka kooban waxaan rubnaa inaan hubino magaca loo yaqaan Xamse ma ku jira tabalka mise kuma jiro waxaan qoraynaa hadoo leeymo print markaan qorno waxaan leenahay magaca loo yaqaan Xamse maadaama Xamse string yahay laba qoys baan gelinaa magaca Xamse loo yaqaana in biyo ku guda jira tabalkeena loo yaqaan names isaga inoo sheegi doona false or true imika si garano maadaama Xamse aanu value-ga kamid ahayn false bay inoo soo bixi doontaa waxay inoo soo bixi doona false laakiin haddii mid kamid ah values-kan soo qaadano value-da mid ku jira oo isku si u qoray imkayga Cabdiasiis hadda imkayga Cabdiasiis kala gaan ku qoray iyo Cabdiasiis kan waa same marka imka true bay inoo soo baxaysa oo fiirsa true bay imka inoo soo baxaysa laakiin karo Cabdiasiisyada haddii aan in yar aan Soomaaliya karo oo Cabdiasiis kan sidaas oo kala aan yareeyo halkay taasiisideeda weyneed wuxuu noo doona waa false oo kala si buu ka dhigi doona balaan eego waxaan dadal Cabdiasiis kama garanay adna maanta baad ku khalkhal oo doontaa warinaad ka Cabdiasiis ku jiray muxuu Cabdiasiis ku soo saaray waxa weeyaan same isku si weyn oo qornaaday halkaas hadii sidaas weynta way sideen weyne eedaas weynta weyn la weyne la socota taas waa taa insha Allah inta video-geena daba ku kulmi doono waxaan ku kala tagay salaada salaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi